waa maalin soonqaad waxaase jawiga maalintan oo dhan daboolaya dooga indhaha u roon iyo biyaha xareedda ah ee harooyinkan ceegaaga kuwaas oo meeshaba ka saaraya in qof kasta oo halkan yimaada uu dareemo kulaylka iyo haraadka maalmaha bisha Ramadaan. waa ilaa 20 kiiloomitir isku wareega oo sidaan u eg maxaad moodaa marka dadka ku nool xoolaha ku nool quruxda ay leedahay dalxiis ahaan beeris dhul beeris gala way wali xagga beeraha laakiin halkaan misna xoolaha iyo beertu waa labadaba waa lagu sameyn karaa. deegaankan waxa uu ku yaalaa duleedka waqooyi galbeed ee Cadaado waxaana lagu magacaabaa Cadaada yaryar waxaan ka badnayn 5 kiiloomitir ayuu Cadaada u jiraa. inta badan halkan waxaa kaaga muuqanaya noocyada kala duwan ee duunyada oo daaqaya nimcada Rabbi ku manaystay halkan. toddobaatamaadkii qarnigii tagay waxaa loo yaqaanay dooxada cagaaran ee Cadaada yaryar. saddexda nooc ee meesiga xoolaha ayaana halkan ku dhaqmi jiray sida uu sheegayo Cabdirasaaq Cali Carab oo kamid ah dadka deegaanka. waxaan u leeyahay ilaa xilliyadii siyaad barre wuxuu ahaan jiray xilligii macnaha ay loo yaqaan dooxada cagaaran ee Cadaada yaryar dooxadaas oo ay ku dhaqmi jireen geela iyo ariga iyo looda saddexda dunyaale oo dhulkana magaciisu u ahaan jiray dhulka ximan ee bartamaha Soomaaliya. waxaalad ka bedelan xaaladda magaalada halkan midda ka jirta sida uu sheegayo Axmed Sheekh Xasan Jagajage oo arrimaha deegaanka ku takhasusay. labay ku kala duwan yihiin jawiga miyigu siisaba waqtiyada barwaaqada meel ka wanaagsan oo ka caafimaad badan ma jirto. miyigana waxa nooleeya nicmada Ilaahay keeno sida roobka oo kale iyo dhirta oo kale ku qurxiya. haddii marka ay dadku gacmahooda ku jiraan dhirta oo aysan beerin maxaa dhici kara abaar heeyaata ay baan kartaa oo lagu kala guuro. marka waxaan sheegaynaa walaalayaal in dhirta la dhowro beeyada la ilaaliyo oo aan la jarin oo laga dhowro birta iyo faaska iyo gubashada iyo jarista intaba waayo nolosha dadka waxa weeye beeyada maanta aan ku noolnahay haddii dhir la waayo nolol waa la weynaya ay u soo baxeen dad dhirta jira afarta geedo harta oo quruxda badan leh oo deegaanka qurxinaysa ayaa dadka laga celinayaa oo jaraya. maanta waxaan ku sugannahay deegaan ka baxsan magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug. waa maalin Ramadaan balse looma maleeyo inay tahay maalin Ramadaan waayo waxaa jawiga bedelaya doogan indhaha u roon iyo sidoo kale biyahan xareedda ee halkan ceegaaga. waa hubanti inaad u xiisi doontiin xaalad kasta oo ka jirta halkan. dhulkan waa dhul dhoobay meel ka ah meelna waa dhul hadii lahayd maka dalxiis meelna waa dhulka maaragtay hadii lahayd dhagax caadiya. marka alxamdulillah rab wax la yaab leh oo maleeyeen runtii ayaan ku arka meeshan runtii aanan islahayn dhulkan dhul noocan oo kale ku yaala. dhulkan anigu in badan maanan ku noolayn muddooyinkii dambaan joogay laakiin waxaan u heysay dhul qaraf ah oo lama degaan ah laakiin dhul cajiib ah oo noocan halkan ku yaala ma maleeyeen. waxaan la yaabay hadda dhowr haro aan tagnay oo meeshan ku taala oo midda kale ay ka qaalisan tahay waa u jeedin hadda biyaha dhex fadhiya waa wax cajiib ah maaragtay geedaha waa arkaydin inkastoo maaragtay dad wax margarataay ay geedaha dhibaatooyin badan u geysteen misna waa dhul cajiib ah. Saadaq Laki Galmudug TV Cadaado.